ma ogtahay in Fahad Yaasiin uu macallin u noqday Mahasalaad? Sidee ayuu ugu noqday? Xogtan dadka ma wada og yihiin? Fahad Yaasiin isagu sharaf miyay u tahay mise Mahasalaadna isagu ma yahay arday og macallinkiisa? Inta muuqaalka ayaa ku daawan doontaa ee ka hor fadlan muuqaalka like dheh si dad badan u gaaro. Valowna na soo dhisay maalin waliba aad noola socoto. Maazani taliyaha cusub ee hay'adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Salaad ayaa hawada ka saaray dhammaan barihii bulshada uu lahaa oo inta badan uu soo dhigi jiray qoraallo aragtidiisa ka turjumaya. Mahad ayaa tani markii laga dhigay taliyaha NISA aan wax qoraal ah soo dhigin barihiisa bulshada gaar ahaan Facebook iyo Twitter. waxaan ugu dambeyn lagu baraarugay barihii Mahad uu ku lahaa Facebook iyo Twitter oo hawada laga saaray. Taliyaha NISA Mahad ayaa ka hor inta la magacaabin daawaday si joogto ah u soo dhigi jiray barihiisa bulshada, wuxuuna caan ku ahaa in si weyn u mucaarado una naqdiyo talaabooyinka ay qaaday dowladda Farmaajo. baraha bulshada ee taliyaha Mahad waxaa ka buuxa qoraallo badan oo wax uu sheegay siyaasadda dowladda hore, waxaana xeelleerayaasha sheegayaan in Mahad uu xiray bariis si aan loo soo qofin wixii uu hore ugu dhaliili jiray dowladda hore si aysan hataa caqabad ugu noqon shaqadiisa. siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa inta badan caan ku ah inay dhaleeceeyaan waxna ka sheegaan nidaamka ama dowladda aysan xilliga ku jirin, waxaana dhacda marka ay xil qabtaan in dhaleeceyntii iyaga ku soo laabato kuna fashilmaan howlaha loo igmado. xildhibaano iyo siyaasiyiin badan oo horey muxaafid u ahaa dowladda Farmaajo ayaa hadda la filayaa inay isku bedelaan mucaarad una rogaan ammaantii dowladdii hore dhaliil joogto ah ku socota dowladda cusub. halkan weeyaan daawadayaal, halkan u socono sababtoo Mahasalaad hawada bariisa gaarka ugu saaray ayaa ah goor sii horeysay Fahad Yaasiin oo sheegay in uunan lahayn waxa koona isla markaana bar bulsho u isticmaalin ayaa Mahasalaad u noqotay fariin adag oo casharno ka bartay. dad badan ayaana iminka aaminsan in Fahad Yaasiin uu macallin u noqday Mahasalaad isla markaasna wadadii Fahad uu qaaday. daawade waa dhankaadii maxay kula tahay Fahad Yaasiin uu si sahlan Mahasalaad macallin ugu noqday? aragtidaadana qaybta commentiga nugul wadaag siina share garay. Maazani ogeysiis muhiim ah. cudurka baabasiirka waa cudur halis ah oo keeni kara in aad weyso dareemaha qaar ka mid ah jirkaaga. waxa uu ku bilowdaa caloosha oo fariisata kadibna dibiryo joogto ah iyo in aad muddo ka maqnaato suuliga, taas oo keeni karta in ay adkaato saxarada si adagna ay ku soo marto dhanka hoose, kadibna halkaasi uu ku sameysmo nabar keeni kara dhiig. waad iska daaweyn kartaa adigoo la tashanayo dhakhtar aad ugu xeel dheer kaasi oo ka howlgala isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Siiriyaan isagoo isticmaalaya daawo iyo qalab casri ah oo loogu talagalay baabasiirka. isbitaalka wuxuu ku yaalaa inta u dhaxaysa Tarabuunka iyo Digfeer ama kala soo xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda. mahadsanid.